السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ورركا LLN TV oo idinkaga imanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Kampala anigoo Yusuf Birjeex ayaa warka caawa idin la socodsiin doona daawadayaal wararkeena caawana waxa aad ku daawan doontaan madaxweynaha dawladda deegaanka Tigreega Debretsion Gebremichael oo eedeyma culculus u jeediyay dawladda federaalka ee Itoobiya baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida oo yeeshay kala fadhigiisii 11aad midowga Afrika oo kulan ka yeeshay muranka ka dhaxeeya dawladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya kaasi oo ku saabsan biyo xidheenka wabiga Niil saddex sargaal oo kamid ah TPLF ayaa la sheegayaa booliska Itoobiya in ay xidhxidheen isla markaana ay ku eedeeyeen in ay gacan saar la leeyihiin ururo argagixiso dhanka kalena saddex sarkaal oo ka tirsan ururka TPLF ayaa la sheegayaa in ay jeelka u taxaabeen booliska dalkaasi Itoobiya saraakiisha jeelka loo taxaabay ayaa waxaa kamid ah nin lagu magacaabo Tawalde Gabre oo ah madaxa xarunta dhexe ee xafiiska Addis Ababa u qaabilsan ururka TPLF booliska dalkaasi ayaa waxay saraakiishan ku eedeeyeen inay xiriir la leeyihiin ururo argagixiso balse booliska dalku ma aysan cadaynin cidda argagixisay ee ay saraakiishan xiriirka la leeyihiin waxaa la sheegayaa oo kale in maxkamadda ay ka soo hormuuqdeen saraakiishani booliska dambiyada ku soo eedeeyay saraakiishan ayaa maxkamadda ka codsaday in loogu daro 2 isbuuc oo baaritaan balse qaadiga maxkamadda ayaa booliska siiyay 2 isbuuc aan idhaahdo hal isbuuc oo ay ku soo baaraan arintaasi dhinaca kalena baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa yeeshay kala fadhigoodii 11aad taasi oo ay ku gudagleen ama ay ku ansixinayeen qodobo ay kamid yihiin miisaaniyadda dawladda deegaanka miisaaniyadda dawladda deegaanka ee sanadkan ayaa lagu soo waramayaa in ay tahay miisaaniyadii ugu badnayd abid ee uu yeesho dawladda deegaanka Soomaalidu dhanka kalena midowga Afrika ayaa kulan ka yeeshay muranka ka dhaxeeya dawladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya taasi oo la xiriidha wabiga Niil shirka ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha dalka South Africa Cyril Ramaphosa wadamada goobjoogayaasha ka ah shirkaasi ayaa waxaa kamid ah midowga Yurub, Mareykanka iyo wadamo Afrikaan oo ay kamid yihiin Kenya, Mali iyo Congo shirkani ayaa la sheegayaa inuu ka qabsoomay visual meeting ama kulan aan caadi ahayn oo ama kulan aan toos ahayn oo ah khadka isgaarsiinta qodobadan ayaa la sheegayaa intooda badan in lagu heshiiyay marka laga reebo dawladda Itoobiya oo iyadu ku adkaysanaysa dhaamka biyo xidheenka wabiga Niil in uusan wax dhibaato ah u geysan doonin wadamada Masar iyo Suudaan halka wadamada Masar iyo Suudaan arintaasi ay walaac farabadan ka muujinayaan markale ku soo dhawaada warka LLN TV oo faahfaahsan daawadayaal madaxweynaha dawladda deegaanka Tigreega Debretsion Gebremichael ayaa eedeymo culculus u jeediyay dawladda federaalka ee Itoobiya Debretsion eedeymaha uu jeediyay dawladda federaalka waxaa kamid ah cadaadis curyaamin ganacsiga cunaqabatayn iyo isaga oo sheegay in lagu hayo isirbeegsi qoomiyadiisa Tigreega ka dhan ah
waxaa kale oo intaasi ku daray Gabrazion in ay dowladda Eritrea ku hayso dalka Ethiopia faragelin dowladda Ethiopiana aysan uga hadlin sidii loo baahnaa. dowladda Ethiopia ayaa doorashooyinka dalkaasi dib u dhigtay halka qoomiyadda Tigreeguna gebi ahaanba doorashadaasi ay ku gacan saydhay ay sheegeen inay doorasho qaban doonaan bisha August ee fooda inagu soo haysa. wararku waxaa kale oo intaasi ku dareeyaan qoomiyadda Tigreegu in ay diyaariyeen komishinkii doorashooyinka isuna diyaariyeen in ay doorasho gali doonaan. Gabrazion waxaa kale oo intaasi ku daray xarunta shirkadaha Ethiopia Industrial Park oo ah xarunta warshadaha guud ee Ethiopia oo ku taala magaalada Maqale in aysan dowladdu siinin hamiyadii ay lahayd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون. wartacsiya oo hadda ku soo dhacay xafiiska LLN ayaa waxa uu sheegayaa in uu galabta geeri kadisii ku timid allaha u naxariistay marxuum mujaahid maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ONLF. haddaba anagoo bahda LLN oo isku duuban waxaanu uga tacsiyadaynaynaa maxamed rashiid ehliyadii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan ummadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo ururweynaha ONLF oo uu ahaa mujaahidku lafdhabartii iyo raggii waqtiga dheer geliyay maskax muruq iyo maalba halgankii dabada dheeraaday ee ONLF.